annagoo meeshii joogno oo sidee loo hogay oo loo ba'ay oo dad dhulkii ku soo rafaaday meesha waa ku soo qulqulayeen waana la dhegaysanayay laakiin markaa ma go'naa haddaynu go'no maxaynu innaku isu noqonaynaa oo wada leenahay oo samaysanaynaa meesha kamaba iman waxaad saxeexdeen declaration waxba maana saxeexin anaa haya saxeex war saxeex annaku aanu leenahay kala go' oo la kala go'a ku dhawaaqidda somaliland adiga war ma saxeexin oo anaa haya waroy saxeexaas maya saxeexaad sheegayso document qura oo haddaannu dhulbahantannahay aanu saxeexnay nabad iyo maamulkaa laleeyahay ha la dhiso inaynan innaku faragelin annagu gudahayaga annagaaba kala soconnay gartay laakiin saxeexan ma waxaad leedahay war saxeexaasu ma jiro oo meel soo samaystay aniga waxaan kuu leeyahay waxay igu kalifayaa hadda soo hadda hargeysa ma joogo arrimihii unbaynu weli ka hadlaynaa war saxeex aanu saxeexnay oo maamul la dhisayo oo fundamentally ku salaysan waddankaa la kala goynaya aanu saxeexnay ma jiro flatly anaa ku leh 1993 boorama haddana lagu shiray waxaa la soo saaray xeer magaranaysaa laysku maamulo oo axdi qarameed laydhaa goobjoog badkaana ka ahayd maya ducaalow waxaa jirta war dhulbahanta qura ma ahayn war dadkaannu annaku isugu dhowayn ee fakerka wada wadnay jaamaxaad qaalib baa ka mid ahaa duksi baa ka mid ahaa fakerkii markaa ninkaa la yidhaaho fagadhe faker annagu markaa aanu wadnay wuxuuba aha oo laga yaaba in practical inuu u ekaaday markaa waray dadkan waa aragna waxa dhulka ka socda iyo maanta dooxan iyo walwalnaga haye annaka oo dhulbaantaa iyo isaaq maaha isaaqa dhexdooda kii 94-95 ka dhacay annaga wax walwalka nagu haya waxaasay ahayn war waxa kan wax sugan oo aan la qulaanqulsha raacin oo la dedejin oo ah constitution iyo meeshan haddayn rule of law aan laga samaynin oo maaha waxun buuga lagu qoraya wax lagu dhaqmayo iyo warbahashan ciidana cid ma martiyayso wax la wada leeyahay oo ceedhanka lagu qaybsanayo waxa hargeysa ay ku diidaysa xamar soo ma ahayn we are being marginalized wixiiba waa nalaga qaaday waxaanu meesha ka nahayna ma jirto the same thing baa halka ka socday walwalku markaa ugu weyne maalintaana waa maantadan aynu wada hadlaynaana waa jira nin dhintay oo fagadheel la odhan jiray maxamuud saalax nuur iyo maxamed cali caateeye iyo tiim uu cabdiqani garaad cabdiqani madax u yahay oo mucaarada yaa jiray oo xamar joogay maxamed siyaad barre markaa wakhtigaa dambe xadhiggii iyo wixii waa isa soo tari waayeen lama xidhin waatay ilaa balligubadle ay SNMta ugu tageen annagu nimankaasaanu wada soconnay mucaaradka ahaa shirkan la qabanayeyna waxaanu u nimi oo nimankaa hadda aan sheegayo fagadhe maxamed cali caateeye nin bawdagaab la yidhaaho waxa iyagaasuba dibadahaannu ka soo noqonnay nairobaanu nimi safiirkii talyaaniga oo soo baxaya oo berbere imanaya diyaarad wata yaan soo raacnay berberaanu baawur ka qaadannay burco waxaannu markaa u tagnay annaku mucaarad la yaqaano oo garaad cabdiqani ku xidhan baannu ahay isagaa markaa aanu wada soconnay isagaa yidhi shirkaasaan aadaynaa dhibaatooyin dagaal sokeeyo weyna dhulkan wuu ka socday oo qolyahan SNMta iyo qabaa'ilkan dhulkan u dhashay iyo xaggaasoo dowladdii soomaalida ciidamadeedii iyo qolyaha dhul bahantay iyana dhex fadhiyaan iyana dhex fadhiyaan ma dee ayba isku milmeen
marka waxay noqotay waxaaba eeriyadii dadkanu deganaa yaa waxayba noqotay batalka meesha lagu dagaalamayaba anaga markaa walwalku wuxuu naga hayay war meeshaan ama civil war ama dagaal sokeeye uu ka dhaco rag baa markaa runtii burco markaan intaananba annaku imanba hawl badan qabtay oo in laga hortago ciidamada SNM ee markaa wixii hub dhulka yeelayna gacanta ku qabtay ciidamadii maxaa siyaad barana meesha ka baxeen arintii inay noqon dagaalkiisa la sii wado taawiyata anaga markaan keentay meesha waa run waqooyi dhan baa isugu yimi laakiin anigu caleehaan iyo ragayga hore mucaaradku meel laba kuma aanan arag SNM ay leedahay wadanka la kala goynaya shirba saad ogtahay magaaladan Hargeysa lagu qabtay rag reer Hargeysa oo SNM taha yaa fikir soo jeediyay war hadda inoo furan tahay inaynu waxaan go'aansano marka anagoo burco joognaba yaa doodaas SNM dhexdeeda aad iyo aad uga socotay rag badan oo central committee ahaa waanaku aanu ardayna wada ahayn xamarna aanu wada joogi jirno wasiir iyo civil servants iyo wada ahayn deeyakuna waa ragaanu iswada naqaano isla mucaarad ahayn waana noo waramayeen arrimo meeshay marayaan arintan kala go'a waxay runtii keentay arin loo diyaar garoobay ma ayan ahayn haddana mid dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay ugu babac dhigi karaan oo dagaal ay isku daafacayaan oo markaa u suurtooba ma ayan ahayn waana warbal waxaan la isku soo gaadhay nimankan haday iyo kuleeyeen annaka dawlad noqonayna bal dawladoodaas ha wateen laakiin nin la magac garanayo oo inaga tirsan waa inuusan dawladda ka mid noqon marka anagu waxaanu haddaydan idinku saxeexin anigu waxaan ku idhaa Somaliland marka arrinka laga wada hadlay waxaan ku idhaa goosashada maxamar baa idinka goosatay mise idinka goostay xamar baa dawlad ku dhawaaqday moogtay oo madaxweyne iyo samaysatay iyadoo aan waxba la weydiin xamar prime minister Umar Artay ka dhigtay iyagu waxay islahaayeen waaba si u sad kordhiseeno cali heer la gaarsiimadka eeg marka meesha uu muranku wuxuu ka imanayaa two levels xamarna iyo shirarkii ay ku qabanayeen Djibouti maxamed ibraahim gal shirarku uu ka qayb galay dadka koonfurta joogo kala soo socda waa ka qayb galeen hawiye oo kala socda oo ninkii loo jiray maxamed faarax aydiid iyo cali ninkii abgal magaciisa cali mahdi waaba kala socdaan laano shirkaas waa meesha aydiyaha kan cali mahdi iyo Umar Arte iyo in wax laga sameeyo shirkaas uu ka yimi waxaad leedahay markaa Dr. Cali Khaliifo haddaan ugu baahantanahay oo shirkii burca ka qayb galay waanu baqarnay oo in la nalaayo dan raaci weyno SNMta iyo qolada isaaqa bise idinka wax khiyaaminayo waxaad tilaahen aynu staat raacina marka hore hadhowraan isku la rogno maya ducaalow hindsight ku fiican yahay oo mar muddo koor wax dhacay inaad ramay saasa aanu niriyo fiicnayd war labada arrimoodba waa jiraan meeshan dagaal sokeeye uu ka dhacay xasuuq baa dhacay dagaal de kulli ciidamada SNM iyo ciidamada Sumxad Siyaad Barre meesha waa joogeen dadkanuna aagaasoo dhan ilaa Ceergaabo ilaa maxay ahayd haye oo de danoodiiba u dhow dagaalkan fidnadu waa ka taagnayd walwalkaas waa nahay laakiin walwalka ka weynaa waxay ahayd annagu goobjoog xaadir baanu ahayn wixii la dhisayay wax aanu annagu u aragnay in ummadda ka dhaxeeyo waa noogu muuqan weyday waxaan bislaynoo yacyacoodana uu ekaaday sheekan ku sheegay karin marka maya waaba sheegi karnaye laakiin wuxuu sheegisba ma ahayne wuxuu wax dhammaaday fair complete wax dhammaaduuba ahaa